السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waan idin salaamay Soomaaliyay meel walba aad daafaha dunida joogtaan waa walaalkiin Abwaan Shaakir oo idin leh seetihiin ma nabadba. Salaanka bacdi waxaan maanta halkan ka soo jeedinayaa gabay magaciisa la yiraahdo dhaliil waxaan kaga hadlayaa arrin in dhaweetaba baraha bulshada haysatay oo ah gabadh Soomaaliyeed oo muwaadinada oo hal abuura نعيم الله يراهدو أو ريال هرجيسا كبعدنا مقدشاتي ومن الصوماليات يوالتي الصوماليات كهذا الشيء. إن دبادتنا وحصيف بحر اللي يرو يدت كقار إن ما جاي عن نعيمة ولا محمد مقدشة كوجي حاب من الصوماليات وهذا الشيء حاب بدها كوجي حاولت الصوماليات كجري يوحي أبلا مذا. إن هذا جرى قبل داسي هدي أي تيجي لهذا السبب أما نيروبي ما قلت هاي إن لو قرن لا صدا أيها ما يبي لا تاي مركا قبل كان دليل وحنقول دليل يا دتك إذا ما جيا إن يجوا خلدينهن يظن أي سحنت هاي مركا إن هذا البدن هان مبشة عن إذن بلابو قبل دليل وحنا قبل يقول دعيا صداتن إن وحانرين maraan dhuuxay dhambaalkii daraad la isla wada dhaafay waxaan dheegtay wararaan dhugto aad u dhumuc weyne deadline-ku wuxuu soo dhigaan kaaga dhacayaa ludi baa ayaamahan la yidhi dhigatay shiidkii iyo nimanbaa dhibaayoo lahaa hadalla dhaadheere inantuna dhabbay taabatay lama dhaliileene dhinaceeda ma ay joogsadeen dheelalawyadu laba dhaban dharbaaxiyo hadday dhagaha ay goyso kuma dhiiranaadeen kuwii soo dhufays galay iyadaa ka dhawrtay waqay gelin la dhaafteen aniguna cid dhaanto ayaan dhiiran ma aqaane wax dhiiglaba waxaan dhaadayaa dhowrsan kaligeeda adduunyada haddaan dheehan laa waaban dhisan lahay dhaqaaliyo waxaan gelin lahaa dheeman iyo luule iyaguna dhaleecay wadaan waa wax kala dheere waxa lagu dhibayaana waa dhowr kalmoo dhabaha waxay tiri dhibkiibaa batoo dhaygag baan ahay niman dhuuni raacaa dadkii dheeliyo rogay dhinacaad istaagtaba kuwaa dhooban oo tubane iyagaa dhammaystoo dalkii dhoofshay oo gaday inta dhimanna caaway rabaan inayba dhiibaane dhalintiina madha toobad baa dheeftay kulligoodi aniguna dhibkaasaan arkaa oon cidiba dhaadayne inuu soo dhammaadana maruun waan dhursugayaa dhalashiya walaal baan rabaa la isku soo dhago dhibka aynu dayno midnimo qaadna dhabadeeda aynu dhiibno qorigoo qabiil dhaafno dhammidiisa dhagartiyo xumaantana dhigno dhaanno saan nahay naga dhaafa xumahoo axmaar eega dhinaciisa isagaa haddeer soo dhigto raba dhulkeennaasi iyaduna dhabbay taabatiyo waxaan la dhaadayne walaalnimo hadday dhowrtay oo ay midnimo dhaahday maxaa lagu dhaliilaa runbay soo dhawowtiray adigana dhafuujow halbaan kuu dhigdhigayaa idinkiiyo kuwaa kula dhigmee dhoohanee jiraba dhimir iyo waxaad wada tihiin dhoorre iyo tuuga weligiinba meel lagu dhaqmaad dhiga tidhaahdaan waxaad dhaadan weydeen hadday dhayda ka caddaysay maxaad uga dhalaasheen run maa kuu dhadhami weyde maxaad ugu dhahdeen oo xumaan idinku dheereeyey maxaa dhaliyay dhaartana ileen dhagarba may oole bal maxaa ku dhaandhaamay oo dhinacxun kuu leexshay kolkan aad dhahaysana dhul baan leeyay keligayna shalaad dhugatay mooyee idiin waa wax soo dhigane ma aad dhalan kolkii uu dhisnaan dhaaxa abidkiiya dhici maysa maantana axmaar inuu dhambaalaay anigaa dhidbaayoo awood dhee kastaba geyna dhaqafta beenta ah ilow yaana dacaroone afartaas sidii dhaan la raray ma iska daba dhooba ma dhameeyey caawoo kaluu dhaabad leeyahay dhudo kalena waan odhanayaa dhuux bal hadalkayga ictiraafintuu dheer yahaan kuu dhambalayaa dhulka aynu joogniyo cirkuba aad u kala dheer sidii weeye adigoo dhintoo soo dharaarbaxay iskamana dhahayo runtan kuugu dhagacsiin dhugashiyo haddaad leedihiin dhaga waxweeleey dharaartii waleetaba bacbay idinku dhoobaane dhowaaniyo waxay kugu dhahaan dhowr cishaa hadhay dhalateedka beenta amar baa laga dhammaaday dhiy qura miyaydaan dhahayn beenta naga dhaaf
beenta naga dhaaf. riyaduba koluun bay dhacdaa ama dhabowdaay, wax kastoon dhaqaaqay. maxaa dhalo idiin saaray, bal maxaa dhibaatada ku baday, waa su-aal dhigane. bal maxaa dhibaatada ku baday, waa su-aal dhigane. gabaygii intaa ayuu ku dhammaaday. waxaana su-aalahan weydiinayaa wiilkii soo gabyayey, waxaan leeyahay maansada soo tirinayay, gabay muu ahayne heesta soo tirinayay. marka jawaabtiisa ayaynu eegaynaa oo gabay ah isla markaana xarafkan ku socota. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.